ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا يقصر دوّا channelka Surfiyaan maanta Allah tabaaraka Allah maanta waxaan la qaybsanayaa buskudka quruxda badan la sidii aan u sameeyay waxaan ka sameeyay daawasho waan insha Allah. Hadda waxaan soo qaatay koobkaas biyaha koobka lagu cabo waa insha Allah. Waxaan ku soo shubanayaa sonkorta budada ah ama sonkor aan soo shiiday. Marka haddii aad haysatid sonkorta caadiga oo soo shiidi kartaa haddii kaleetana iyadoo sideeda isticmaali kartaa dhib ma lahan. Insha Allah hal koob oo sonkor ayaan ku soo shubtay waa sonkorta budada ah. Waxaan ku soo darsanayaa hal koob oo kale waxaan ku shubayaa 2 koob insha Allah oo sonkor ah. Ilaahay yiraahdo koobkan aadna uma buuxo laakiin buuxin oo u soo dhow yahay. Marka 2 koob oo sonkor ayaan halkaas ku soo shubtay hadii Ilaahay yiraahdo kadib waxaan ku soo darsanayaa insha Allah subag ama butter insha Allah. Marka waxaan ku soo darsanayaa labadan xabo ee vanilyaha ama carfisada ah waa qaado bay ka kooban yihiin kan maaragtay biyaha hadda haysatidna dhib ma laha waa isticmaali kartaa kan hadda haysatidna waa isticmaali kartaa insha Allah. Saan sheegay waxaan ku soo shubanayaa 2 koob oo subag aan soo dhalaaliyay ah haddii aad subagna haysidna saliidaada waa isticmaali kartaa insha Allah. Laakiin subagga iyo buskudku uu ku wacan yahay 2 koob oo subaga 2 koob oo sonkor ah 2 qaado camal oo carfise ah hadii carfisada haysanina haylka waa isticmaali kartaa insha Allah. Hayl shiidana isticmaal laakiin haylka buskudka markaa ku dartid uu ka soo muuqanayaa madmadowgiisa iyo waxaas kasoo muuqan. Hadda waxaan ku soo darsanayaa ukunta isticmaali doona waa 5 xabo oo ukun ah 5 xabo oo ukun aan ku soo daraa insha Allah. Ukunta mar walba waxaan jeclahay inaan shay yar oo kaleeto aan ku soo shubto insha Allah. Waa kaas intee xabo ukunta ahayd ayaan hadda ku soo darsaday. Hadda waxaan ku soo darsanayaa qaadada yar afkeeda hore oo baking powder ah insha Allah baa ku soo darsanayaa hadii Ilaahay yiraahdo kadib waan isdhex gelinayaa. wax mashiina oo aan ku qasayo ma lahan gacanteyda ayaan isticmaalaa insha Allah. Saana wax yar isugu qasayaa waa sida subagii iyo carfisadii iyo sonkortii intaana iyo ukuntii intaana isku qasaa insha Allah. Saana isugu soo qasaa insha Allah. Gacanteyda soo dhaqday nadiif waaye gacanteyda ayaa la galayaa hadii Ilaahay yiraahdo. Kadib waxaan soo qaadanayaa koob baan soo qaadanaa isla koobkii aan sonkorta ku cabirtay weeyaan 6 koob oo bur ah aan isticmaalaa ama daqiiq ah. Hadda 2 maraa insha Allah 2 3 5 koob 5 koob marka gacanta la galaa insha Allah. koobka kaleeto waa sugayaa hal mar kuma wada daray laakiin markaa isticmaali doona 6 koob waaye. Marka saana waxaan rabaa inaan 5 koob aan tijaabiyo inuu subagga bal buskudka meeshii aan burka ka rabay inuu istaagay inaan usii baahanahay koobka kale hadii Ilaahay yiraahdo. Mar walba waxa fiican aad tartiib wax ugu darsatid kadib waa kana halkii koob kaleeto ayaan aan ku soo darsaday waxaan arkay inaan u baahanahay. Marka sidaana aan si fiican ugu soo qasaa insha Allah waa soo dhaxgalnaa isku soo noqonayna hadii Ilaahay yiraahdo. Waa kana waa fiican u soo xashiya baaran soo qasaay wax kale oo aan ku darin ma jirto waa intii aad arkayseen aan isticmaalay wax kale ma ku darin just waan soo xashay si fiican la rabaa inaa wixii oo dhan ay isu dhaxgalaan ay isugu milmaan. Marka saan aragtid oo kale waxaan moodaa kugu dhagdhagayaa buskudka marka waxaas leedahay oo kale oo ka jilay biyo dhacay ku sii dar wax kale oo bur ah. Marka uma baahnid inaad bur kale ku dartid sidiisaas la rabaa buskudku inuu ahaado hadii Ilaahay yiraahdo. waa kaas qurux maasha Allah tabarakallah sida smoothka ah ay ii noqday wax bur ah oo kale iyo wax kale oo saliid oo kale ama subag oo kale u baahan yahay habeeraatay ma jirto sidiisaas uma leen inuu uu dhagdhagaas inuu ka biyo dhacay oo kale hamoodin. Marka waa kaas saana aan soo qasay maasha Allah waa kaas aan ka rabay intii aan ka rabay ii jooga maasha Allah. kadib waxaan soo qaadanayaa insha Allah ka tagaa waxaan soo qaadanaa saxankii aan diyaarsanaa
waa kana hadda saxankii aan foornada ku gelin lahaa waan soo diyaarsaday. Waxaan u baahanahay oo kaliya waxaa waaye mindidaas iyo qaado. Mindi alla mindi isticmaali kartaa iyo qaadada inta lagu cuno. Kadib insha Allah tacaala hadda waxaan gelaynaa qaabkii mataqaanaa u sharaxi lahayn ama decorationka oo sameyn lahayn insha Allah. buskudka intii xabadii u horeysay hadda bilaaba insha Allah. Saanaan dhahaa tartiibtaada adoo waqti haysta loo baahan yahay inaad sameysid hadii la yiraahdo. waa buskud yar mataqaanaa maasha Allah tabaarakallah ciid isaga wacan inaad iska sii diyaarsatid maadaama guryaha la joogo mataqaanaa banaan loo bixin waa inaad guriyihii ku iidnaa. marka maasha Allah saanaa soo dhahay 5 dhinac camal adiga xidig camal baan saasa u sameeyay. mindida marka saa ku iri dhexdaan farta uga daloolinaya wax yar kadib waa dhigaa insha Allah. saanaa marka mataqaanaa tartiibtaada saan soo akaasa. marka waa kana xabadii kale saana ku wadaya insha Allah. 6 nooc ma ka dhigaya ama 6 qaybood oo kale hadii Ilaahay yiraahdo. marka waa kana qaybtii labaad xabadii labaad in tusinaa insha Allah. hadaad tarka meesha dhigtida farta ku daloolin kartaa hadaad adoo gacanta haysta ku daloolin kartaa sidii markaas adiga aad comfortable ku dareemaysid oo ku fudud insha Allah baa sameynaysaa. hadda waxaan soo qaatay half ka mid ah burkii aan sameeyay oo buskudka ahaa hadii la yiraahdo. waxaan ku darsanayaa shukulaato ama cocoa powder baan ku soo darsanaa hadii la yiraahdo. si fiican aan mataqaanaa isku soo dhexgelinayaa taana hadana isku soo qasaa hadii Ilaahay yiraahdo. qaybtaana hadana diyaarina insha Allah. caleenta aan ka dhigay saa diyaarina waa inta saaya insha Allah. taana xogaa yar baa soo qaadanaya oo qaybta shukulaatada kadib taana dhuuba qayb kalena waa soo qaadana hadii Ilaahay yiraahdo. qaybta kalena taana soo dhuuba afkaan saan isugu saaraya saan dhaxaa insha Allah isugu soo dhajinaya. kadib midaan soo qaadaya waxaan ka dhigayaa caleen oo kale wax yar oo mataqaanaa qurux badan oo caleen waa kaasa sokor baan qaadaya sokorteena caadiga aan saas soo dhexgeliyay. waa kaasa xabadii saddexaad hadana aan tusin doonaa qaybtan oo mataqaanaa caleenta aan ka dhigay. marka hal mar burqas hal marna inta doontid oo nashqad ka dhigo waay insha Allah. inta allaale inta rabtid oo nashqad oo jeceshahay ayaad ka dhigan kartaa. marka aniga hadda waxaan ka dhiganayaa adiga ilaa 6 qaybood oo kale hadii Ilaahay yiraahdo. inta doonta ka dhigan kartaa saan qaybtan caleenta la sokorta mataqaanaa aan soo dhexgelinaya waan iska qorxis kartaa dad rabin waa iska dhigan kartaa. marka waa kaasa qaybta caleenta la haysta ku dhameeyay maasha Allah qurux waaye ilaadan siino siyaadinta haysan nasiih. marka waa kana qaybta saddexaad hadda inta tusinaya insha Allah. intaana soo qaatay saana mataqaanaa saan wareega ma ka dhigay mindida soo qaadana insha Allah. saana mindida mataqaanaa gees mataqaanaa ugu soo taabana ama ugu soo goynaya wax yar xariijima ama liid maalaha ku sameynaa insha Allah. kadib saana qaadaya tartiibta mataqaanaa adoo waqti haysto u baahan yahay oo tartiib u sameynaysa. wax makiinad iyo wax mashiina u kaaga baahan yahay habeeraatay ma jirto. gacantaada ayaa waxaan oo dhan ku diyaarsanaysaa. waa kaasa sida quruxda badan lagu soo baxay. qaybta xabadii labaad kana in tusinaya hadda qaybta saddexaad aan marayna insha Allah. qooro waxaan ku dhahay aad u qurux badan yahay isla sidii kii hore aan niri oo kaleeto ayaan geesaha mataqaanaa mindida uga jarjarayna qaabka adiga aad jeceshahay ayaa mataqaanaa nashqad nashqadii markaas adiga daneynay sidaa ka dhigan kartaa. laakiin nashqadaana hadda sameynaya aniga maasha Allah hadda kan oo kale dambeeya aad u qurux badan yahay maasha Allah. qaybtaana saana ku soo dhameeyay. hadda qayb kaleeto oo shukulaato leh aad bilaabaya insha Allah. waa in tusinaya hadda qaybtaana sidii mataqaanaa u sameynaya
xoogaa yar oo qeybta shukulaatada lahayd aan soo qaadanaya insha allah. aada u biskutkan taqaanaa qurux iyo macaan. Sonkoraan dhexda kasoo mariyay, sonkoraas usoo daray, kadibna waa sonkorta caadiga ah, kadibna farteeda ayaa saa dhexda uga dalooliyay. maasha allah qurux. marka waa kana isaga qeybta saddexaad, xabada saddexaad maraya dhag. waa kaasa asaga shaqada isku yeelay kana saasa kusoo dhameeyay insha allah. afarta qaybood hadda marayna, 2 qaybood noo dhiman. waa kana maasha allah saana qaybta afraad kusoo dhameeyay hadii ilaahay yiraahdo. hadda waxaan bilaabeynaa hadii ilaahay yiraahdo qaybta shanaad. bilaabeynaa qaybta shanaad. waxaan soo qaatay yaro bura oo mataqaanada shukulaatada lahayn saana dhahayaa. waxaan u maleynaa arki kartiin kaamirada wax yar iga fog karaal ahaada. marka waa kaasa saasa mataqaana ma dhuubayo, wax yar oo balaar camal ka dhigaya. kadib qaadada soo qaada afkeeda hore saasaan ku dhaxayaa. sidoo kale aan sonkorta soo daraa. kadib sonkorta qurxin leh waa daada rabin waa iska dhaafi kartaa, waa lagu iska qurxinayaa. marka waa kaasa saasa soo dhigay. kii kalena waa kana saana dhahaa. adi wax yar oo dheer oo aan u dheereen aadna u balaarnay waa meel dhexaad aan ka dhigayaa. marka waa kala gacantaas isku dhaadhaha, faraasa ku dhaadhaha, kadib qaadada afkeeda afka isku dhaadhaha insha allah. waa kaasa qurux maasha allah. waa kaasa qaybta shanaad saana ayadana kusoo dhameeyay insha allah. waa kaasa dhag. qaybtii waxaan bilaabayaa lixaad ee ugu dambeysay hadii ilaahay yiraahdo. waxaan soo qaadanayaa 3 shukulaato iyo 3 yaryar oo ku cadaan biskutka bleenka marka waxaan sameynaa dhaafinayaa xabad shukulaato xabad cadaan oo waxba lahayn baan isdhinac dhigayaa. waa 6 xabo oo isla eg, 6 yaryar oo isla eg inay isla kaadaan fiican. marka waa kana saasaan gacanta ku dhahayaa wax yar. waan isku soo dhaweynaa insha allah. saana isku soo dhaweynaa. waa kaasa qurux. kadibna faraaga hore waa saa ugu riixaysaa qurux maasha allah. waa kaasa aad iyo aad u qurux badan maasha allah tabaarakallah. waa kaasa qaybtii lixaad saasaan ku wadayaa insha allah. hadda waa in tusaaya wax yariisa soo qaadanaa banooni camal ul saas seekal uga dhigayaa insha allah. 3 iyo 3 aan ka dhigaa sidii kii hore oo kale un waaye. marka waa kaasa saana ku wadayaa insha allah. waxaan tusaaya 3 xabo inay isla kaadaan waaye. 3 shukulaato iyo 3 maaragtay oo biskutka caadiga burka caadiga waxba lahayn. 6da inay isla kaadaan waaye. saana mataqaana aan kusoo wadaa insha allah. waa kaasa saana kasoo dhigay xabadii dambeysay. hadda aan soo sameynaa 5 xabo meesha ku haysta. xabadii lixaad waa tana maasha allah. waa kana hadda aan isdhex gelinayaa xabad cad iyo xabad shukulaato la isdhinac dhig. waa kana tan halkaan laga qaado waaye. xabad shukulaato la dhigaa, haddana xabad cadaan la dhigaa, haddana xabad cadaan la dhigaa. geeskan waxaa loo dhexaysiinaa xabad shukulaato leh. marka waa kana spaceka madaa wax yar inuu ugu yar yahay. marka waa kaasa maasha allah. waa la deeqsiinaa laakiin dhib male waa la farsameynaa. wax walba farsama lagu wadaa. waa kaasa maasha allah tabaarakallah. quruxaan ku dhahan xabadan oo wax ubax aada uga helay qaybaha aan biskutka ka helay. waa kana tana aada uga helay nashqadan iyo nashqada aan mindida ku sameynay ma kala dhacaan, laakiin nashqada kusoo jiidanaysa maaha. saana kusoo dhameynaya nashqada lixaad insha allah. wax yar oo u baahan tahay inaad dalooliso tarta ayaa saa ugu daloolina hadii ilaahay yiraahdo. waa kaasa saasaan kasoo dhameynaa insha allah. nashqada u dambeysay qurux kaale iska arag waaye biskutkan qurux maasha allah tabaarakallah waaye.
waxaan soo dhameeyay xafadii u dambeysay aan soo binaya insha Allah ma sameynaa hadii la yiraahdo qaybtii lixaad waa kaas soo dhameeyay kadib waxaan rabaa dhexda inaan ka galiyo kii caddaa ee ugu horeeyay waxaan dhexda kasoo gelinayaa shukulaatada buskudka ah burka iyo qasna oo shukulaatada aan ku daray aan wax yariis soo qaadanaya marka saana uu soo qurxinaya hadaan rabin waa iska dayn kartaa ama nacnac gashan kartaa kii kaleeto oo isagana saana uu soo galiyay marka waa kana kan kaleetana waxaan gelinayaa maadaama isagu shukulaatada waa u kala bedelay isagana waxaan soo dhexda saa ugu soo gelinayaa waa bur yar oo cad halkaasa qurux maasha Allah aad u qurux badan yahay kan kaleetana waxaan soo dhexda kaga soo shubay nacnac yar oo pink ama basal yah ovenkan galiyay ovenka kadibna waa kana qurux saana kusoo baxay maasha Allah tabaarakalla ovenka waxaan ku hayay adiga muddo 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo ovenkan iskuma xirna waa kana qurux maasha Allah tabaarakalla ilaa adaan siyaada biskitkiisana noogu soo dhamaaday walaalahayga qaaliga aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada aan daawanayseen 6 nooc hal mar buskud aan qasay oo aan 6 nooc ka dhigay waa 6 iyo ka badan waa ka dhigan kartaa hal marna waa qasaysaa marka waa kaasa maasha Allah tabaarakalla saas ku soo baxay buskudkii kaale iska arag macaankiisana ana in dhadhamiyay maasha Allah waa kaasa marka buskudkan saan noogu soo dhamaaday maasha Allah Ramadaan khayrkeed Allah inoo soo xijiyo iidan ilaa khayr inuu gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo bash aad u mahadsantahay daawashada aan daawanaysiin please hadii aad ka heshay alaabtan soo tijaabi aad iyo aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.